wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaysa jaamacadda Golis ayaa qaar ka mid ah shaqaalaheeda u furtay tababar la xiriira xirfadaha wada xiriirka iyo qoraalka waxaana munaasabadda furitaanka tababarkaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mas'uul ka socda jaamacadda Golis agaasimo waxadiyo iyo qaar ka mid ah shaqaalaha tababarka loo furayay Liibaan Yuusuf Xaaji Cali agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo halkaas hadal ka jeediyay ayaa ka warramay waxtarka uu tababarkan u yeelan doono shaqaalaha loo furay tababarkan maanta wuxuu daaran yahay communication skills, report writing, effective report writing ama writing skills. tababaradani waxay si joogto ah u anfacayaan shaqaalaha mar walba waxaynu ka gudbaynaa marxaladii hore aynu taagnayn oo waxaynu gelaynaa marxalad cusub oo ah teknolojiyadda soo kordhaysa si wax loogu qori lahaa haddii shalay tab la taagnaa computer la taagnaa AI maanta la marayo sidaas darteed mar walba shaqaaluhu waxay u baahan yihiin update communicationka ahina wasaarad ahaanna waa mid si guud inoo anfacaya shaqaale ahaan iyo dal ahaanna waa mid in mar walba la is update gareeyaa inoodana jaamacadda Golis oo aan si gaar u ammaanayo inagana caawisay trainingkan iyadoo aan wax kosa iyo wax dhaqaale ah midna inaga rabin iyadana si gaar aan ugu mahadnaqayaa si weyn baan ugu mahadnaqayaa tababarkan wuxuu socon doonaa 2 cisho ee communicationku wuxuu soconayaa 2 cisho bariya maanta soconayaa 2 cisho waxaanu doonaynaa in aqoonteena iyo aragnimadeena iyo xafiiska waxyaalaha ka soo baxaya ay wax iska bedelaan Hawada Axmed oo ka socota jaamacadda Golis ayaa iyaduna ka warrantay doorka ay jaamacaddu ku lahayd kor u qaadista xirfadaha iyo aqoonta shaqaalaha human resource-ka wasaaradda jooga ama shaqaalaha wasaaradda jooga waxay u baahan yihiin continuous update la xiriirida aqoontooda maadaama jaamacaduhu ay yihiin meeshii academic ahayd dawladana inta badan la focus gareeyo day by day activity-deedii tusaale ahaan kale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland dhanba u shaqeynaysa laga yaabaa inaydan waqti kale helin inaad xataa masters kala diyaarisaan ama waxyaabo kala dhigataan because of dalka dhanba u shaqeynaysaan marka waxaanu garanay bal in aanu idinku imano xafiisyadiina oo aanu wixii ma garanaysaa tarankayga idinku karno kulli tababaradan aan wadna kuma koobna wasaaradda arrimaha dibadda kaliya waxa jira wasaarado kale oo iyagana tababar siinay tababarkan maanta aad qaadan doontaana kulli ma noqonayo kii ugu horeeyay iyo kii ugu dambeeyay kulli liiska tababarada oo soo gudbinay Liibaan rabadaanta kadib ilaa bisha shanaad si gogoos ay nagu socon doonaan tababaradu adduunka jaamacadaha iyo wasaaraduhu waxay leeyihiin xiriir dhow tusaale ahaan oo kale wasaaradaha arrimaha dibadda waxay xiriir dhow leeyihiin jaamacadaha inta badan bixiya koorsada la xiriira siyaasadda wasaaradda caafimaadka ama wasaaradda waxbarashada waxay xiriir dhow leeyihiin jaamacadaha background-kooda ama ku fiican waxbarashada ama ku fiican caafimaadka taasi maxay naga caawinaysaa waxay naga caawinaysaa in haddii loo baahdo research oo kale in la sameeyo si yar oo fudud ma garanaysaa jaamacadihii ay u qaataan doorkoodii haddii loo baahdo in la diyaariyo strategic plan kulli wasaaradaha dhan waxay diyaarsadaan 5 years of strategic plan ana rajeynayo in qorshaheedii aad ku jirtaan imika sanadkan ama diyaarsateen sanadadii hore kulli waxyaabahaas oo dhan ciideedna diyaarinaysa ama ay tahay in la diyaarisa wax weeyaan jaamacadaha dalkeena dadka wax soo barta iyo dadka foreigners-ka waxa la isweydiiyaa xog lama hayo laakiin in xog aan la haynin ama aan research fara badan la sameynin wax weeyaan gaab weyn oo ka taagan xiriirkii jaamacadaha iyo government institutionski waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay in team fara badan oo diyaar ah inay tababarka qaataan gabagabadina Maxamed Cabdiraxmaan Xasan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah u furay tababarkaasi waxaana uu shaqaalaha ku booriyay inay ka faa'iideystaan si ay xirfadaha lagu tababarayo uga faa'iideeyaan wasaaradda iyo qaranka farxad bay ii tahay iyo wax wanaagsan in jaamacadaasi Golis ay runtii ka soo jawaabtay ama ay runtii inala garatay dadaalka joogtada ah ee ugu jirno inaynu kor u qaadno aqoonteena si shaqadeenu haynana kor ugu sii qaadno markii aan wasaaradda imid runtii shaqaalaha badankooda la shiray waxa ugu badan aan wax walba kala hadlay wax ka saabay inay kor u qaado heerka ay joogaan marka iyada laba si fiican hadda waxa loo taabtay xilligan marayno casrigan joogno iyo jiilkan la baxay AI generation oo runtii inuu si fiican u taabato qof ka fahmo si fiican uga faa'iideysan karo in maaragtay wax kasta oo diyaariyay
si efficient ah ama PowerPoint ugu bedelaya ama graphic ugu bedelaya ama report ugu bedelaya ama figures ugu bedelaya marba sida uu qofku uga faa'iideysanayo dabeetana ay shaqadii hore u socodsiin karayso marka inaan dunidana runtii la socono waa arrin aan isleeyahay waa inoo muhiim tababarka maanta halkan loo joogaana waxa weeye effective communication in diplomatic skills ama effective communication skills in diplomacy dhammaanna runtii wasaaradda dadka jooga waa diblomaasiyiin weeye waxay matalayaan dalka waxay la macaamilayaan bulshadii caalamka inoo imanaysay marka qaabab diblomaasiyaddu leedahay oo qofku ula macaamilo ciidaha kale ayaa jirta marka inuu qof kastaaba runtii aad isugu dhiirigeliyo hadday protocol and etiquetteska tahay hadday tahay qaabka maaragtay macluumaadka loo gudbinayo hadday tahay qaabka maaragtay loo soo dhaweynayo hadday tahay qaababka farshaxanka ah ee maaragtay dunida lagula macaamilo marka runtii waa ku faraxsanahay mar labaad inaad ka soo qayb gasheen runtii waaxii badankoodii iyo shaqaalihiiba way joogaan waxay ku dhiirigelinayaa inaad runtii ka faa'iidaystaan tanna waa kow maaha dhammaadkii hore waynagii ugu dhawaaqnay inaan maxadkii diblomaasiyadda furi doono oo aynu iminka qorshihiisii gabagabeynino ujeeddaduna tahay maaragtay in wasaaraddu ay haysato dad ku filan oo khibrad leh oo khibraddii ugu dambeysay casrigeeda dunida halkay maraysay maanta ku shaqeyno marka runtii waad ku dhiirigelinayaa doonayna inaan sii wadno hadday kuwan yihiin hadday kuwa maxadka yihiin iyo hadday kuwa dibadda u tagayna yihiinba runtii dhammaan laakiinse idinkuna dhankiina aad sii diyaar garowdaan oo qof kastaaba isku dayo